بسم الله الرحمن الرحيم كلن أي شيء هجامين حزب برواقة فرع الصومالي قرب كسحيتانك أو يسوقشرا جودي فلين قلاد دحى جودي بارست يدبا قلادة يكوادر حزب برواقة فرع عيسى ديانك الصومالي أو لو قيمة حالة عدك أو كشرا ديانكو وحكسوا بحي إن إسبدل كيكرد عيدالك سنة كلا كون يتمنى سديدة ترسي تاريخاتك يوروب aan looga faa'iideyn bulshada ku nool dawladdeegaanka Soomaalida gaabisna ka jiro waxa cadeyn oo ah qodobadan hoos ku qoran kadib markii uu faraca deegaanka Soomaalida xisbiga barwaaqo qaybtiisa saxitaanku ay yeesheen kulamo isxiga waxa ka soo baxay baaqan soo socda waxa cadeyn oo ah qodobadan hoos ku qoran koow hogaaminta xisbigu kuma dhaqmaan barnaamijka siyaasadeed xeer hoosaadka iyo sharciga nidaamka istiraatiijiyadda iyo barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga lambar 2 waxay ku fashilmeen xaqiijinta in shacabku helaan maamul suuban adeeg hufan ilaalinta sareynta sharciga iyo ilaalinta hantida shacabka hogaaminta xisbiga 3 hogaaminta xisbiga faraca deegaanka Soomaalidu waxay iyada oo la marin nidaamka xisbiga ay si toosa u eeriyaan xubnaha xisbiga ee markaa magacawnaa lambar 4 hogaamintu waxay ku fashilmeen inay xoojiyaan hay'ad ku shaqaynta isla halganka dhexdooda ah iyo dimuqraadiyadda xisbiga dhexdiisa qiimeyntoodu waxay dhaafi weyday isqarsi iyo xal mastuur lambar 5 hogaaminta deegaanku badankood kuwa lagu soo xushay aragti xisbinimo ma aha lambar 6 مسؤولينta heer deegaan xisbiga barwaaqo faraciisa Soomaalidu waxay afduubeen geedi socodka xulashada qofka metelaya shacabka deegaanka Soomaalida ee ka qayb galaya wada hadallada qaran ee la ilaamiyay ee la rabo shucuubta wadanku inay si nabadgeliya uga wada hadlaan danahooda ee loo balansan yahay iyadoo aan la diyaarinin waxa la isku raacay oo laga midaysan yahay haddaba waxaan cambaaraynaynaa nidaamka ay qaateen hogaaminta sare ee xisbiga oo ah baalmarida nidaamka xisbinimo isdifaacasho cadaan la'aan isla xisaabtan la'aan iyo inay ilaashadaan maslaxadooda gaar ahaaneed tan xisbina ay banaanka iska dhigaan ugu dambayn maadaama ayna jirin nidaam xisbi waxa waajib ah in saxiitaan siyaasi lagu sameeyo hogaaminta xisbiga barwaaqo faracooda deegaanka Soomaalida sida daraadeed hogaaminta sare ee heer wadan iyo xarunta dhexe xisbiga barwaaqo Addis Ababa waxaan u soo jeedinaynaa inay badbaadiyaan xisbiga barwaaqo oo ay si toos ah u soo farageliyaan dhibaatooyinka jira xisbiga oo u baahan in si degdeg loo saxo wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh